والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد marka koobaad aad baan idinka mahadnaqayaa dadaalka aad wadaan ee ku aadan faafinta dhambaalka diineed. marka xiga walaalaha isoo salaamay waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum wa calayna wa calaa cibaadillaahi saalixiin. intana jecel ilaaha jeclaado, intaanu jeclayna allaha soo hadiyeeyo, diinkana allaha ku toosiyo. dhammaan waxaan jeclahay dadka muslimiinta inay khayrka isku kaashadaan, diinkana isku kaalmaystaan, walaalo ilaahayna ahaadaan. allah idin barakeeyo. barnaamijkana waa ku dhowahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. sheekhana beejka oo su-aalaha lagu iclaamiyey daaru xadiis waxaa ku yimid su-aal aada iyo aada u badan. midda labaad, su-aalo badan ayaa ku yimid. maanta keliya inuu sheekhu ka jawaabay kama gaari doono. ayadana insha allahu tacaala waxaanu inaga codsanaynaa inaad noo kaadisaan ood naga sugtaan intaan kasoo gudbin doonaa. maxaa yeelay waxaa nala qumanaatay inaan tartiibka ay su-aalaha beejka ugu imaadeen su-aalba su-aashasay uga soo horeysay aan ku soconay. waxaa kaloo xusid mudan su-aalo badan ayaa macnahooda mugdi badan uu galay. kuwa iyagaana insha allahu tacaala weebka ama daaru xadiis maamulkeeda insha allahu tacaala ninkii su-aashiisa meesha ka waayay dib hawla xidhiidho. sheekhana saa-iilka koobaad ama su-aasha ugu horeysa, su-aasha koobaad waxay leedahay sheekh waxaan ku weydiiyey, dadka qaar ayaa marka ay sadaqo la baxayaan waxay dhahaan ha la ii duceeyo ama ha la igu duceeyo qof hebel. dadka noocaasa sadaqadaas ajri miyay ka helayaan mise ducadii ayay ku iibsadeen? bismillaah. su-aasha jawaabteedu waxaa weeye, haddii ruuxu marka hore uu ilaahay dartii wax ola baxay oo niyadiisu ay ahayd aada sadaqaysatid lacagtaan hantidaan ilaahay dartii inuu u bixiyo uu niyada ku hayay, kadibna niyadaa markuu niyeystay kadib haddana uu yidhahdo raacsatid in lagugu duceeyo ruuxa dhiban ama kaa xanuunsan ama muraadkaad leedahay, dhib ma laha. ajirna waa ka helayaa, sadaqadiisi waa u jirtaa, ajirna waa ka helayaa, in loo duceeyana waa mudan yahay. laakiin hadduu qasadku ahaa marka horeba sadaqada aad u bixisid ha lagugu duceeyo ruuxii xanuunsanaa ama adiga lagugu duceeyo ay ahayd, markaa wuxuu niyado inbuu leeyahay ajir ka heli maayo. asalku waa sida aayadii xajka ku saabsanayd bay culimadu u daliishadaan qadiyada ayada walaysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum. marka haddii asalku marka horeba ahaa ilaahay dartii aad u xajidid ood waajibka aad gudatid dana kale oon diinka ka hor imanaynin ee dhibna aan lahayn waa la raacsan karaa. kadalika aljihaad baa lamida, marka hore ilaahay dartii aad u jihaadid adoo haddana haniimadii niyada waad ku qaban kartaa. howlo kale, masaalix kale, dana kale niyada waa la raacin karaa. laakiin niyada asalka ay asaasiga marka hore waa inay noqoto ilaahay dartii, wixii kalena ay tawaabici noqdaan. tawaabicda marka asalka hore aan dumanaynin dhib ma laha. gabagabo waxaa weeye ruuxaasi hadduu sadaqada ilaahay dartii oola baxay danta yarna uu raacsaday ajirkiisa waa leeyahay, ducana muusan gadanin ilaahay dartii buu wax u baxshay. haddii laakiin qasad ku ahaa lagu duceeyo keliya, marka iyada wuxuu niyado inbuu leeyahay. wabilaahi towfiiq. jazaaka allahu khayr aljazaa. sheekhana su-aasha labaad waxay leedahay, sheekh qofka markii la dhaarinayo ma ku filan tahay inuu yidhaahdo waan dhaaranayaa oo uusan kitaabka gacanta saarin, mise waxaa waajiba inuu kitaabka gacanta saaro? bismillaah. jawaabtu waxaa weeye masxafka in lagu dhaarto shardi ma aha, waajibna ma aha, waa min almustaxsana cinda bacdi ahlicilm, maadaama qur-aanku ilaahay kalaamkiisi yahay. dhaartuna sifaadka alla lagu dhaartay asmaadiisa daatiga ah, sifaadkiisa daatiga ah lagu dhaarto. saasaa bacd ahlicilm min asalaf kashaafici wagayrihi ay u fatwoodeen ta'kiidan wa tacdiiman lilxalifi walqasami yay u raaciyeen kitaabka qur-aanka. soomaaliya dhaqan u noqday ruuxii la dhaarinayaba in loo kala furo, kitaabka loo kala qabto, gacanta saar la yidhaahdo. ilaahay
magaciisa way inaad ku dhaarato iyo sifaadkiisa kugu filan Soomaali way taqaanaa xataa inaad tirahdo wallaahi baa kugu filan billaahi tallaahi kugu filan dhaartu waajibka waa inahaas laakiin kitaabku waa lagu xoojiyaa asagana waa lagu weyneynayaa ruuxa dhaaranayana waa lagu cabsiinayaa maslaxadaas ku jirta marka laakiin waajibna ma aha shardina ma aha xataa sunna ma aha waa shay iska banaan oo laga tagi karo qaadiga marka fadhiyo ee wax dhaarinaya yaa go'aan ka qaadanaya hadduu arko in uu ku xoojiyo uu sameeynaya hadduu san u aragna waa iska daynaya marka jawaabtu sidaa wayado kooban wallahu a'lam جزاك الله خير شيخنا سؤال saddexaad wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani anigoo musaafira ayaan dib u dhigay salaadii duhur casarkii ayaan soo gaadhay deegaankaygii sideen u tukanayaa salaadii duhur miyaan qasrinayaa mise waan dhammaystirayaa bismillaah jawaabtu waxaa weeye sida roon waa inuu dhammaystiro haddii duhurkii iyo casarkii uu dib u dhigay jamca ta'khiir wixii la odhan jiray kadibna asagoo midna tukan uu gurigiisi tago iyo beledkiisi inuu dhammaystiraa wanaagsan waa mas'ala khilaafiya fuqahaadu isku maandhaafeen waxaana u laabanaysaa qaacidada aad taqaanina ahayd ma waqtul wujuubka la eegayaa mise cinda alficli baa la fiirinayaa waajibka xilliga la gudanaya waxaad ku sugantahay miyaa la eegayaa mise xilligii dimadaada uu waajibku qabtay baa la eegayaa haddii la eego xilligii dimadaada uu waajibka qabtay duhur wuxuu ku soo qabtay adoo musaafir ah casarna hadda wuxuu ku hayaa adoo muqiima musaafir ahay marka haddii kaa la eego waa la kala qaybin oo casarna waa la dhammaystiri duhurna asagoo gaaban baa la tukanaya haddii la milicsado waqtul ficli cinda al-adaana waxaa weeye oo hadda gurigaadi baa timid waad nagaatay musaafir ma tihid ظهر عصر بوحي دعين في وقت الإقامة مركا والحضر مركا والرميسترية خروجا من الخلاف لو صلاة بروح على الرميستر أفرافرات كذا أنا جمعيه والله أعلم جزاك الله خير الجزاء سؤال أفراد شيخ سائل كان وحولي هاي وحن ربا إنان كويديو أرين مالمهن أن كوريري waxaan ku noolahay wadamada reer galbeedka ciidii fitriga waa la kala ciiday oo khilaaf baa dhacay inta badan maraakiista Soomaalidu waxay ciideen maalinkii Axadda ayagoo ku cileeyay in ay Sacuudiga ku xidhan yihiin oo aysan shaqo ku lahayn meel kasta oo bisha laga arko maraakiista Soomaalida ana sida aan ognahay maradiyan bil oo wixii Sacuudigu sheego ayay ku go'aan arrintaas diintu maxay ka qabtaa in khalad iyo saxba qofku uu daba taagnaado dawlad gaar ah ayadoo cilada laga dhigayo ikhtilaaful mataalic baa jira Sacuudiga waxaa noogu jaan go'an salaadaha ayaa noogu jaan go'an oo isku madlac ma aha Sacuudiga iyo Kenya iyo Soomaaliya ikhtilaaful mataalic maxaa loola jeedaa بسم الله وسؤال دير وشرح قوني أباهن كمرة قادو انت اون مهمة كالراعية إن شاء الله تعالى وحا ليلة اختلاف المطالع ووحس كدب بدن وفقهادو اسكم عن رافين ودب بدن وي اختلاف ودوا كلا دواناشو كلا دواني ويا يلا بشي كلا دوانيهين مطالع دونا وجمع مطلع وحان لو جيدا أما مطلع وحاجر هذا وحلقة وذا مطالع الشمس والقمر مطالع الشمس والقمر وحي قرح اسكم رؤوسه بحضانه واسكم مطلع وحي كلا دونا وكلا مطلع وحد شيكتبه قمركو يحدوه حتى كواكبته والله مد مركا إنها سالقة وذا حق مكا الله صلابته صونكا صون إن أركتين لغوصه ما أركتين لغو أفروه مسألة إجماعية بين هاي العلم والمسلمين أدلة بدنا واكتمد دبكو وحو كجرا كليا ما دام المسلمين تايباهين وميلا بدنا لكلا تشوغو وان لودا تشوغين دولة فرابدونا كنتون يردورة مسلمين حتى أي ودما قالت تاقين أولا بربوري قاب كلو سومي لها يسون كود اللو مدين لها بعد بدنا كجرا مذاهب دورة مكا إلى شان لغوصو أرورية مكا لسوع العليو لغانا بدين كارو أيام ميشا كجرا سواب كنا وحاوي
sida roon hadday sugnaato meel walba adduunka aad ka joogtid xilifka adduunka iyo dacaladiisa bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi meesha joogtaba jooge hadday sugnaato ay kuu sugnaato ku qanacdo maanta inay ramadaan tahay oo aragti dad lagu kalsoon yahay lagu soo sheego inaad soontaa wanaagsan maxaa yeelay waxyaabahan kale waa siyaasad kama marno kala qayban muslimiin kama marno khilaaf fiqi oo dhib badan kama marno adugu marka meel walbay sugnaato bishii maanta in laga arkay inaad ku soontaa kuu ron kuwana wanaagsan iyadoo sidaa tahay muslimiinta kale ha kula dagaalamin waa masale khilaafiya khilaaf saa'iq baa ku jira barkeed waa masaa'il ijtihaadiyo waliba daqiiq ah oo culamo u fahmi karaan marka waxbana ha kusii xadgudbin adugu laakiin sida kuu roon waxaa weeye intii maalin ramadaana uu ku dhaafi lahaa oy muslimiinta qaarkood arkeen uu ku seegi lahaa maalinka ayadaa soon muslimiintana raac waxba marka reer sacuudi iyo reer hebel waxaa ku mashquulin baryahan dambana waxaa soo kordhayba waagi hore waxaan moodi jiray dowladaha qaarkood sida sacuudiga oo kale in waqti ay ku bixiyaan bisha aragtideeda oo ay rooyo aada u raadiyaan laakiin waagahan dambe waxaa qalbiga kusoo kordhaya in sida turkiga oo kale iyaguna ay falag iyo xisaab iyo manaasil eegideeda ay ku soomaan oo rooyo badan aysan jirin waxyaabaha soo kordhaya hase ahaatee say doonima ha noqotee muslimiintu meel walbay bisha ka arkaan ay sugnaatana ku suntaa kuu wanaagsan iyadoo haddana marka la eego xagga sayniska la fiiriyo cilmi ma aha muslimiinta lagu qaybiyo aragtida cilmi ma aha maxaa yeelay wixii khatu tuul wada dhacay wixii anagu aan dhihi jiray dhig iyo lool baa la odhan jiray khutuudu tuulku waxa weeye waa 360 180 dhinac dhacda oo sharqi ah iyo 180 غربي أوي خط الطول وحي دعو دنبا وحاوي واسكو أركتي دنكا قلبيد وحي كودنا واسكو أركتي مركا داد يرو مسلمين اسخلافية خطوط العرضنا يقوى بقولي سيديتن سغاشن بكليهين ماشي كوا دولك أي كليهين بقولي سيديتن أدون كدن دي مسافة دي ساي وحدا وصدح بقولي اللحدا واسك خطوط وهمية وحلو حساب صدو ويقول يهان أي وحكو حساب صدان خط قرن شيء إنجليز كان لغو بيسكريي معنا بدن كما سيحي إنه مسلمنا هذا وحو فهمي كرو عامة حكم لو وحي كرا ما هي وحاونا قسن مالنكي أي سقناتو عقاتو إن بشي لا أركي كون أتكو قنعدو كسور وذا دها أتشاكتين السعودي وحنا وحنا يجينا وهول سياسة هول دينيد معها والله أعلم جزاك الله خير شيخنا سؤال شناد سائل كان وحولي هي شيخ قوليوين با waxay furteen company qof walba oo qof ku soo daray lacag 350 ah ayuu ku leeyahay hadii qofka adigu aad ku soo dartay uu qof kale ku soo daro company-gii lacag 150 ah ayaad ku leedahay markasta oo dadku sii bataana lacagtu way sii badanaysaa marka shariicadu maxay ka qabtaa kambaniyada noocaas بسم الله مسألة دي بدن oo casrigan aad looga murmo warkeeduna batay wax yar oo fahmi kara ruuxa muslimku mar u sheegaya insha Allah taala caamayga waliba kambaniyada aad u fara badan ee kala duwan nooc badan la China ka yimaada Yurub ka yimaada galbeed ka yimaada iyo Mareykanka u jeeda Afrikana hadda aad si lixad looga socda khulaasadooda waxa weeye laba shardi ay ka badbaadaan laba shardi haday ka badbaadaan qiil baa loo helayaa labada shardi waa laba shardi iyada u gooni ah kambaniyasha u gooni ah wixii ay la wadaageen muamalaadka kale kama hadlayo muamalaadka wixii la wadaageen sheegay inuu san riba ku jirin oo maadada laga shaqeynayo iyo muntajka la suuq geynayo oo san xaraan ahayn iyo shuruudi beec u lahaa iyo dalaal u lahaa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wixii ayaga khuseeya kambaniyashan loo yaqaan taswiiq الشبكة أو الهرمي وحاول شرطي كوبات وإن لو شرطين نروح أقصى بيري حبنك كان نقونية الزبون كان نقونية أما عميل كون نقونية كمبني وإن لو شرطين وح يبسده الاشتراط بالشراء يعني وحي صوص صارين أما الداودي أما وحي يبنيين بي شرطي كاغا دينا يبسد كمبني شقار كود سلوغو ديوان قليو إنا طاي عضوي
hadhowna wixii aad keensato camuulo lagugu sana ama bonus lagugu siiyo shardiga labaad waa in marka cinda الاكتتاب diiwaangelinta cinda tasjiil aan wax fiia lagaa qaadayn waa inaan wax lacaga lagaa qaadayn haddii lacag lagaa qaadayo ama la shardin inaad wax ka iibsato kambanigaasi wuxuu ka shaqaynayo waa xaaraan waana ribo waa ribo waliba shardiga waxaa usii daran in lacag lagaa qaado kuwada Kenya ama Nairobi ka jiro 2,000 oo shilin baa lagu diiwaangelinaya 2,500 3,000 adoo $30 ama $20 baa lagaa qaaday ribo weey waxay ka dhigan tahay lacag muqrid baad hadda taadiga yimidee customka noqonaya cudwa noqonaya kambanigu muqtarid buu noqonaya waaga dambana waxa lagu leeyahay waxaan aad shaqaysato dad badan keentay waxa la isugu qaadaraya kistaadi iyo wax kale oo keentay marka waa qardi jarra manfaca labada shardi wixii kambaniga ka badbaada dibkana aan qabin waa laga shaqeyn karaa laana waxa weeye amal ba ribi xamaal waa lagu helaa amalna waa lagu helaa waad shaqaysay custom baad keentay macaamil baad keentay dad baad soo jiitay in wax lagu siiyo waa loo ogol yahay sida dalaalka oo kale laakiin waa inaan laga qaadaynin marka lagu diiwaan geliyo xubin laga dhigayo aan wax lacaga laga qaadaynin shardina uu sanaa inaad ka iibsato kambaniga aad wax ka iibsato labada hadii laga badbaado wixii kale waxay la wadaagayaan muaamalada guud ee fiqiga la yaqaano wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤال اللحاد شيخنا سائل كان وحو ليهي وحا اي فرن قرون كبدا عقتها لغو عيارو ولو يقانو صلح وحا كو عيارا رقبس وحا انك اجارا ساعد قوان وقولنا مركا كو عيارا يسان كقاضو لعق $10 يوحي لمدك وكراء مركا لعقتها ايغا سوق ليسا قرون كان نوعاسا حلال مية ايتاي بسم الله baaritaanka iyo mas'alada ku jirta kubadda cagta iyo wixii la halmaaliyo kolayga iyo hadda ku sii mashquuli maayo su'aasha xadidan jawaabteedu baan hadda abaaraya hadii alla yiraahdo marka waxaan leenahay hadii uu ka badbaado garoonkaadu xadgudub diinad ka badbaado oo meel la isku laayo oo la isku qaawiyo oo awraadka lagu muujiyo lagu xadgudba aysan ahayn oo kontroolayso salaadihiina aan la dayacaynin way ku banaantahay inaad ka shaqaysato way ku banaantahay salaadihii xilliga salaadaha la gaaro waa inaad meesha xirayso oo dadka salaadaada amrayso oo sabab u noqonin in salaada laga tago ilaahay xaqiisa lagu toonto ثانيا حدقدب حقوق الناس يديقودي عردقودي لفودنا وسن كدحين ماشي يا عور لقاوي حدقدب لبدا هاد دسك الاليسو وحد كشقيسته قيل با لو هليا inay ku banaan tahay khilaafaadka kale hada kuratul qadam ku jiriya hawlaheeda iyo maalka dam waxay keenay doontaa hada ku sii mashquul maayna wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤال تضباط سائل كان شيخ وحوليه waxaan rabay inaan sakaatul maal ku sadaqaysto masjid la dayactirayo oo ku yaala wadamadan reer galbeedka ama Yurub waxaan sheekha ka maqlay inuu in badan inay bannaan tahay in masaajidada wadamada gaalada ku yaalay lagu bixiyo sakaatul maalka laakiin masaajidada ku yaala wadamadan gaalada badankoodu waxay taageeraan in muslimiinta ay u codeeyaan baarlamaanka marka sheekh ma ku bixin karaa sakaatul maalkayga masjidkaas la dayactirayo laguna taageerayo doorashooyinka baarlamaanka in la galo بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وسؤال جواب دير وباهن لكن ما حدده وحاوية هدي هنتاد بحنيساد أكتاي هنا قاضانيا وداديه ولولينيي baarlamaanaadka iyo tawaaqida in la taageeriyo dimuqraadiyada kuma bixin kartid hadii laakiin beedka ilaahay lagu dhisayo hantidu ay beedka galayso beedku asagu taaqoodna ma aha mushrikna ma aha baarlamaanna ma aha dambina asagu muusan galin waa beed ilaahay waa asalkiisa loo dhisay ilaahay lagu caabudo oo ilaahay lagu waxido oo diinka lagu barto oo muslimiintu ku soo hoydaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku weyneeyaan marka hantidu hadii malahadu u badan yahay in masjidka ay galayso cidii doonaba ha joogto waad ku bixin kartaa ama wadaad wanaagsan ha joogo mid u ololaya hawshaas sheegtay ha joogo waad ku bixin kartaa qasadkaas asaga waad ku dhiibi kartaa
haddii laakiin dareen aad qabto inay iyagu isticmaalayaan iyo howlahoodii kale dee horaanba in lagu bixiya nimanka hanti ma banaanayn intaan xukunkoodaba loo gudbin hanti aan masjidkii gelayn oo ruux ku tasarufayo oo meel kale aadayso iyadoon la eeginba axadka jooga horaanba ma banaanayn haddii marka cudurka uu sii qabay uu ku darsaday aad sheegtana kaba daran laakiin haddii hantidu iyo zakadu iyo xoolahaadii beydka ilaahay la gelinayo nin xunba ha joogee waad ku bixin kartaa wallahu aclam jazaak allahu khayr aljazaa su-aasha toddobaad saa-iilkani sheekh wuxuu leeyahay haddii imaamka ku tujinayay uu faasiq yahay ama ma doorashooyinka iyo dimuqraadiyada uu u ololeeyay ma ka goosan kartaa salaada بسم الله لبا قيبود بي سؤاشو كوبان تاي قيبتا كوباد ku saabsan imaamku hadduu faasiq yahay ma ku daba tukan karaa waa masalatu ijmaacin الصلاة خلف الفاسق أنها لا تجب لبا la isku khaldaa faasiq in lagu daba tukado waajib ma aha oo ruux muslim ku waajibayso ma ay jirto an yusalliya khalfa faasiqin marka taa waa masalatu ijmaacin cadamu وجوب الصلاة خلف الإمام الفاسق ومسألة مقطوعة أيضا إجماع باكو يمد وحا لغا نقاش وجوازك ما بنانت هاي إن كنت بتكنا لغا نقاش مركا هداد هريس إمام عدلي وان فاسق هين صوابك وحاوية فاسق كما دبتون كرت هداد الإمام عدلي هذا هين وفاسق أدونك قبصدين انت قول قاد تكون رسل هيد iskala faasiqa asaga jamaacada iyo wada jirka ka qiimo badan qaybta labaad ee ku saabsan midka maxay ahayd nin asagu u ororeeya doorashada iyo maxay ahayd dimuqraadiyada ma ahayd su'aasha qaybta labaad dimuqraadi iyo nin doorasho u ololeeya doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyada calmaaniga casrigeena asagoo kaas laguma dawgan karo inaad ku daba tukato ma banaano maxay ninka asaga islaamnimadiisa ay fari ku jirtaa go-aankan kalena waad ogtiin baan filahayaa marka ka asagu muslim ma aha midka asaga ee u ololeeya dimuqraadiyada iyo nidaamka calmaaniga asagoo fahansan xaqiiqada iyo waaqica ka muslim ma aha marka salaad kuma daba tukan kartid ama faasiqu warkiisa waa kuu soo hormariyay wallahu aclam jazaak allahu khayr aljazaa su-aasha sagaalaad waxay leeyahay saa-iilkani sheekhana aariyada ka imaata gabdhaha xubinka tarankooda xilligay gabadhu umusha ka baxdo haddii ay ka timaado aariyadaasi iyadoo salaad ku jirtaay salaadu ma ka buraysaa بسم الله ومسألة خلافية بين الفقهاء مالكية حنفية هودا أما نفتا كإيمان يسحبين كتران كإن يسوي ويشد الجبين بيقبان وحن ويشد الجبين صلاة ما الجبين أي مركا أيضا ما دام شرط ظهارة يهوز جليس حنابلة الشافعية وحيو بديهين إن أي جبين يسو والنفت حق ضمب كإيمان يسيو مد حق تران كإيمان يسحبين كتران كيسكم متكردين حنفية مالكية رأي وضعنا إلى الصحن حنفية مالكية رأي إلى الصحن محايا لي والريحية نف غير معتادة وحي مركة غالبة أما معروف أما معتادة هابان حكمك لغو حراه شيء نادر كان حكمك لما آذو ثانيا نفط أيضا نفط علوشة كإيمان يسي وحجبين يسو كلامها وداعي لمتاي داعي هيقاكو قبطي إيه لمتاي علمك حديث كطبك أنا وحتاغيري رأيك حنفية يا مالكية وحيليهين وهو كإيمان يسر حمك السكدي وحبن كان قديه سكا إيمان يسر شغل كلهين علول إيو مخارجتي أي نجاسات كإيمان عن شغل كلهين إيه صاريبا نجيدنا مركا على يتحال روح مسلم كسلاد يسو صحيح بي أهيد ويسيد يسونا صحيحنا والله بي سبب كان هذا النفط كتمت فرجنا ومز خلاف باكوتشيرا الأصل مركا وحاول بقاء ما كان على ما كان أما استصحاب حال الإجماع وحلو نجرب أن هوز جينينا شك بانا كجرا إنه هي حدث باشك كجرا أحداثنا قياس لكم الصقو وحب أنت مسألة توقفية وهي سنة النجاسات وكله مركا رأيك حنفية مالكية أي إلى حق بدن قبل راسي مركا
neefta farjiga ka imanaysa weyse ma jabiso nijaasana ma aha salaad iyo weysana midna jabin mayso wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤاشا طبناد شيخ سائل كان وحولي هاي وحن هاي أرض برتا جامعة وحن برتا كلية القانون والشريعة كلية الشريعة والقانون وحن قانون الجنائي كو قادناي قفك زانيغا حبسي وحنا هين إن أن لغو عقابي كرينين سيدو كلا قانون الدستوري وحن كو قادناي in dumarku ay ka qayb qaadan karaan siyaasadda qaybaheeda kala duwan oo dhan diintu marka maxay ka qabtaa isku darka xeerarka caalamiga iyo diinta islaamka bismillah waa su'aal xanuun badan aadna waxaan u dhibsanayaa in ruux muslima weydiiyaba oo yidhaahdo diinta maxay ka qabtaa hawsha ayada noocaasa oo u baahdo inuu axad kala weydiiyo waa arrin xanuun badan weeye oo ku tusaysa jahliga iyo aqoon darrada ka jirta bulshada dhexdeeda masaa'ilka marka la marayo diintu waxay ka qabtaa waa adoo isku daray nijaase iyo shay daahir ah waa adoo bakti iyo birsol isu keenay bakti iyo birsol waa adoo islaan iyo gaalnimo meel iskugu keenay diin islaan wax lala kulmin karo ama lagu dari kara midna ma jiraan howlaha uu sheegay saa'ilku kulligood waa gaalnimo diinka lagaga baxaayo waa tabdiil axkaamillah waa tactiil lishariica waa baksi iyo bahdil iyo quursi kitaabka ilaahay diinkiisii waa bilid iyo bomboonin la bombooninayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu cambaareeyey uu duray gaalnimo iyo qurankeedii wixii la halmaala ahaa ma banaano axkaamta ilaahay in la bedelo ma banaano inaad ka qayb qaadato ma banaano in la bombooniyo ama loo qeyl bixiyo intaasoo sababa ninka laga helo diinka islaamka banaanku ka yahay ardayga intii la halmaashaba howlaha laga waantoobo axadka lagu arkana ha laga waaniyo ruuxuna ha ogaado hawsha ayada hadduu ka agbaxo asaguna gaalnimaa ka agbaxaysa wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤاشا كوبي طبناد شيخ سائل كان وحولي هاي وحان جوغا ودمد أفريكا كميدا وحان كشقيا صرف كاللعقها marka dhibka meesha jiray waxa weeyaan sheekhana isku qiimo laguma qabto lacagaha lacagta dollarka tusaale ahaan dollarka yaryarka ah halka dollar $5 $10 iyo $20 intaa yaryar waxaa lagu qabtaa qiimo ka hooseeya $100 sababtuna waxa weeyaan dadku ma qaataan marka sheekh waxaan weydiin rabaa riba miyaa lacagtaasi بسم الله وسؤال ور بدن ويه mahadhadeedu waxa weeye dollar hadii dollar lagu sarifayo lama kala badin karo waa 96 iyo midkan waa jajab iyo $20 iyo $10 iyo $5 iyo kana waa 100 isku dhagan iyo lama ogola mid ayada ribo way mar haday lacagtu isku mid tahay isku wadan tahay isku dawlad tahay qadaadiicdeeda mideeda yar iyo mideeda weynba lama kala badin karo taasi waa mas'alo loo yahay qaybta ku saabsan asaga dollarka laftirkiisi markii lacag lagu sarifayo boqolkii marka lacag ku sarifaysa in qiimo go'an laga siiyo mesela anagu 10,200 way Kenya money laakiin markaan konton wato ama 20 wato ama $10 ama $5 aan wato kale mesela hadii la qiimihii boqolka waa laga soka dhigaya ama waa laga badinaya iyadoo lacag lagu sarifayo dib malaamida ayada wadaad isku dhibaa jira laakiin dib malaha mar hadii lacag kale ay tahay wax lagu sarifayo dadkuna ay sheegeen dhibaato jirto lacagtan yararka aad uma socoto midka 96 ko kale dib kale lagu sheega 2003 gaasna waxbay ka sheegaan hawlo badan baa iska jira lacagaha isku jinsiga isku midka isku dawladda sayiduna ma noqoto in la kala badiyo riba ku jirta ama hadii Kenya money iyo riyaal iyo dirham iyo waxba kale lagu sarifayo marka ayada wax dhiba malaha wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤاشا لبي طبناد سائل كان الشيخ وحولي هاي أولياء المقتول واكوي مثلا الله شرطيا إن أيسكو وافقان إن قصاص قاتان أما أيدي قاتان
بسم الله أولياء المقتول لبا إطلاق بالله إطلاقا إطلاقنا مثل اللغوي منه ومن شرعها مثل اللغوي وجعلك يا أهلك نك الدليل قتيلك ودن حسبديسي قرابديسي أهلك يسودن يا أولياء النقونية وإن لم يكونوا ورثة يزن نقونن با أما مثل فقه شرعي أولياء المقتول في الفقه حق الشرعيات كوحوي مكلا مري دحل مري قصاص لمري وأحد كروح الدليل دحي لها ديديسي مكتيس أحد كدحي لها حوله وتكتغن دحي لها يا أولياء المقتول كواس أولياء أيغاسا مركا حقول إني قصاصتان يا إني دياقاتان عفيان قصاصتا waxaa loo shardiyaa inay isku waafaqaan warasadii dhiiggiisa lahayd dhaxalkiisa lahayd magtiisa lahayd oo dhan waa inay isku waafaqaan in la qisaasto 10 ruux haday warasa u ahaayeen hal ruux ka mid haduu yaanu qisaas mar rabe waxaan rabaa diyo ama waaban cafiyeyba qisaasta way dhacaysaa bil ittifaaq qisaasta way dhacaysaa hadii ay qisaas dhacday marka diyo baa waajibayso kuwa kala diya qaadanayaan wali xaqooda ku aadanaa baa la siinaya kii cafiya soo meesha waa ka baxaya cafisku marka wuxuu keenayaa iyo diyo in loo wareego waxay keenaysaa qisaastu inay dhacdo wixii kalena khiyaar baa ka furan ninkan wixii cafiyin magtiisu leeyahay ninka cafina meesha waa ka baxaya marka awliyaa maqtuul waa warasada qisaastana waxa loo shardiyaa in wasoo dhan ba isku waafaqaan haday marka ay yihiin baaliqiin waaweyn oo qaangaad ah ayaa shardi haday yar yihiin barna ay waaweyn yihiin barna yar yihiin waa mas'ala khilaafiya bayn fuqaha wadaad badan oo salafkana waxay qabaan inta yararka ah waa laga tagay kuwa weyn baa la qumaya oo qisaasta fulin kara aathar iyo xadiis badan bay u daliishadaan annaga shaafiiciin wada ogtihiin ilaa warasada ay qaangaadho oo wixii cafiyaan ama ay qisaasta ogolaadaan lama oofin karo dib baa loo dhigay waa la ta'jiilaya waa nuqabnaa اسكا مسألة خلافية المهم ورصده وين سكر راعده قصاصته أولياء المقتولة وحاويات كده حلقة اسكالها والله أعلم جزاك الله خير وإياكم سؤاشا صديقية طبناد الشيخ سائل كان وحوليه يسونا مركا قرآن كالله آخرين أيوه إن التجويدية مواجبة مسجرت أدلة السنة ساي هبكي أي صحابة القرآن كأي واخرين جرين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بريان ذنبي ور سوكر لي وركا أساقا سايلك سوكري ورا أنصل لهين ومعنى لهين وقيمة لهين قرآن كا حروفتيسي iyo qiraa'adka sida loo qaatay ba adihiisa tajwiidigana loo qaatay marka mid walbana asal iyo adillo leeyahay saxaabadii laga qaatay quraanka ee nabiga ka soo qaadatay ayaa qaabka u akhriyi jirtay taabiciintuna qaabkaas ay uga qaateen quraadina sidaas ay uga qaateen qaybtooda taabiciinta ahaa iyo qaybtooda atbaacu taabiciin ay qolkiisa dambeeyba waa tariiq salaf wa tariiq nabi xurufta iyo qiraa'adka iyo adaha tajwiidiga kulli waa shay waxa weeye tawqiifi ah oo laga qaatay weeye lagu qaatay bi atharin wa mustanad shar'i in la kala qaado tajwiidka quraanka iyo qiraa'ada iyo xuruftiisa la kala qaado waa shay dambe wadaan qoli aan aqoon badan diinka u lahayn ninkii u baahdana ka akhriyo kutubta asalka lagu talagalay ee fannigan laga qoray marka had muraajaceeyo waa helaya adilla ay leedahay nusuus bay leedahay صحيحان كجرتا قابو نبي اخري جرى قرانك marka hawl saalan ma aha bidcada ay la wareegeen caamada qaar kood iska ilaaliya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam جزاك الله خير الجزاء سؤاشا أفري طبناد وحولي يا شيخ سائل كني وحن لا يهي صدح نانيس إيا مقع أيغا صحدا وحن قرسدي أفرحاس أما أنقبا أفرحاس مدولبا نانيسا كميدا بأي تقانا marka ma shardi ba sheekhana inaan haweeney kasta ama gabar kasta aanu sheego magacayga saxda ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين waxaad moodaa waa ninka artoola oo gudgud badan ninka asaga waxa golo dhici karta dadka Yurub iyo galbeedka duruuf badan bay mareen ayadna inay jirtaan waa dhici kartaa shardi ma aha xaasku
iyo cidda wax kugu meherinaysay iyo shuhuudda meherkaba waxaa un shardi ah inay yaqaanaan adiga muuqaalkaada iyo daatadaada shardi ah. in magacaada saxda ay yaqaanaan shardi ma wadaadda adkeeyo dhuujiya oo wax walba adkeeya, laakiin muhiimaddu waxaa weeye in markay markhaatigu wax kugu meherina uu ka markhaati kacayo marag meherkaada iyo ninka weliga ah iyo inta shuhuudda meesha joogtaba daatadaada iyo magac lagu yaqaano ay kugu garanayaan. magaca hadduu doono kunya ha noqdo, naanays ha noqdo, kii saxda ahaa ee lagu walqalay ha noqdo, daatada iyo ismi lagu yaqaano waa in la helo. haweenaydu marka hadday ragga kaa taqaano ay ku soocanayso ku fahansan tahay oo dadka ay kaa taqaano magac sumadana ay kuu taqaano intaa waa ku filan yahay. laakiin waxaa wanaagsan inaad waxba aada kala qarinino haweeney walba magacaada dhabtaad u sheegto oo hadhow saan inkiraad iyo dafiraad midna aysan u imanin. taas aad bay u wanaagsan tahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شن يطبناد سائل كان يقول لي يا شيخنا سيدي لو جمعنا يا قال إن عداود لو موتشيو هي إن لقول دقن وناكسن سي أي إسلامان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد سؤال شاسي وسؤال إسكا كوبا حقنا قد بلاران ما كلا صو كوبا جوابتي أن صو كوبنا وحوي لا إله إلا الله محمد رسول الله إن أتجدادو وقالوا سيدا يكوكو أجيهين لفتر كذا عاود موجنا لفتر كذا عاود موجنا قال كي إلهي كفريي الرسول كالضفري hortiisa inaad ka tiraahdo oo ku og yahay inaad aaminsantahay ilaahay inuu keligii yahay, keligii cibaada mudan yahay, wixii ka sokoyo dhanna baatil iyo bakti uu yahay, nabi maxamed rasuul xaq yahay, inaad aaminsan tahay inuu og yahay ood muujisato laftirkeeda waxay tahay at-tasriixu bil cadaawati lil kaafiriin iyada idhaaru al-cadaawa. qodobka labaad in aadan baatilkoodii iyo kufrigood u qeyl bixinin xaggana aadan taageerin nalaftirkeedu waa meel cadaawa. qodobka saddexaad inaad kufrigood iyo baadilkooda radinayso oo muujisanaysa radigiisi laftirkiisu waa cadaawad la muujiyo wey. inta markaynu kasoo tagno qodobka muhiimsanna waxaa weeye inaadan gaal muslim oga helinna waa cadaawadood muujisatay oo tawalliga iyo muwaalaadka iska ilaalinaysa. in muslimiin iyo gaalo haddaad doonto muslimiinta isku dhacsanaatiin ururo kale ha noqdeen kuwaad ka soo horjeedo reer hebel oo saqiir cullow idinka dhaxeeyay iyo umradoox ha noqdeen waa inaadan oga helin muslim ruux sheeganaya oo muslim ah diinka aan ka bixin hadduu doono mubtadiba ha noqdee waa inaadan gaal oga helin. haddaad gaal oga heliso diinkaad ka baxaysaa. marka shahaateenkii wixii la halmalo muujisato gaalnimadooda oon u qiil bixinin xaqoodan la waabanin adoon weliya gacal ka dhiganin. qodob afraad oo raaca xaggana ayaga aan weynaynin tacdiimkooda iyo buunbuunintooda iyo hawshaasi waxay keenaysaa in diinka aad ka baxdo. xanafiya waxay dhaheen waman cadama kaafiran aw bajalahu kafar. ninkii gaal weyneeya ama tabjiiliye boos iyo yasa iyo hawlo kasii daaya iyadoon daruura aysan jirin waxay dhaheen waa kafar, waa hawl adag. marka hawlaha iska ilaali. wixii intaa ka soo hadhay waxaa weeye in la isku khaldo ma aha ruuxa in loo ixsaan fale iyo in la weyneeyo ama xaqi meel lagaga dhaco ama gaalnimada la taageero ama loo qeyl bixiyo way kala duwan yihiin. wuxuu qur-aanku ka hadlay ilaahay idinkama reebin baa la yidhi inaad u ixsaan fashaan. laa yanhaakum allahu can alladina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibbu lmuqsitiin. شافعي في الأم وحوي إلهي كما رب عن مبرة هؤلاء وإنما نهاكم عن موالاة وتولي هؤلاء وليس البر والإحسان مما نهي عنه من الموالاة. والنص الشافعي أو معناه في الأم وفي الرسالة إنها من جعلها في عفوا في أحكام القرآن مركا لبال اسكو مخلدو إن أتقالك إحسان فشو أما عاوسو انت waxaa laga hadlayaa dam xastooda masaakiintooda ahlu ahdigooda kuwa bal iskale dimada gaalka xarbiga lagama hadlayo. gaalka xarbiga iyo midka muaahadka iyo midka dimiga kulli way lagama dhigan karo. muwalaatul kaafiriin wa tawallihim wa kufr mutlaq meeshu dunba ku yimaado. waxa laga hadlayo waa man yuhsanu ilayhi wa yubarru
ومن لا يحسن إليه ويبر. أما العدل أصغو في جميع الكافرين ظالم كنا ظلم لما أقوله أصغو قالوا الدليس حتى إن عدالتك كتكت لما أقوله مركع عدل وأصغو في كل باب وحلقها الله وبرق إحسانك بري إحسان إيو معاملة وناكسن كيني سروح الدين كنو صوقله والله إحسان فلا وحاوي وحاسكالتك أهل دماها. أما هذا أجد معاملة wanaagsan oo islaamka maxaasintiisi karamkiisi akhlaaqdiisi bilicdiisina muujiso waa shay loo baahan yahay wato nabigu isticmaalay maxaa yeelay gaalka aan dilaynay yaa markaan soo qabanna waxa wanaagsan in la iska sii daayo la qoodiyo bal waa min ad-diin ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اسيرka waa maxay waa kaafir xarbi كافر حرب ونقون كرا مركا إحسانك إيا برقا إيو أخلاق الإسلام إلا موجيو إيو إن قال لما لك عالكتو أولا بومبوني أولا قيل بحي ويكلا دوينهين لبا بابا إصلاحين ويي من نوى الو قالوا با من نوى وناك دينك واحتري إلهي نورها لك عقل نقون إيو والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤاشا لعية طبناد سؤالها هاد المرة ما هي ميات سؤالك ما تمر يعني سائل كان الشيخ علي هاي صح ميا عرورة مسلمين تا عرورة قالوا إنيين شغالها أهل الجنة سعرورة قالوا أدي قاران حد التمييز أما عقلي يشان حقنا قال نمكو رالي النقدان إن الحسابين. بسم الله وسؤال وباهن بحث دير وباهن لكن ما كلا صوكوبه مسألة لو يقان أطفال المشركين المذاهب تبادن كتير بهوستغيسا سيدا الصواب كان وحاوي مسألة ومسألة إجماع منه ومحل خلاف خلاصة عروض المسلمين هو أهل الجنة أهل الجنة وي مركا مد والبنا علمه والدك يا أهلك بخدمينا يعني أهل الجنة وما خدمينا يجوا كواسين أهل الجنة أحمد غير كيبا إجماع سوق جوري خلافناكم الجرو خلاف كان سوق جورينا وخلافا معتبر هي عندها العلم وكل سن حق بدن إنه سنين وذات كان نصوص هي السنة أو خلافي خلاف وصل يسمى عدم العلم بالدليل كذب هذا الدليل كله عقاده لما اعتبار يصير راجحة صدرت باي صورة كشيء الجماعة من المتأخرين وأحمد كمدي هاي صندراوية إن يجمع جوريان أيوة عقا خلاف كورة السابقة هي الجري يكون اسنا عدم العلم يو عدم بلوغ الدليل كل اسنا. أما تقص بسن أطفال المشركين مذاهب بدن بأكو جرسين راجحانة أطفال المشركين وين أهل الجنيين من أهل الجنيين إن خدم يأذيك أهل الجنة لقد جماعة من السلف باقبة وبعض الصحابة كمدي أنس كمدي هاي يتابعين كليا ولا دكالبا قيب تقص بسن هذي قال لما كنا عان المها سبيق قالك مميز كولي قان قارين سبيق مميز قال الله قولكم إيه المها نمومن مسلم كا يمدك كافر كا به راعي الدين كبا انتو سنقان قارين لكن وحكى سوعي عقله هو شيء تمييز هذو قال لما كدعوا انه قالوا بالراجح والمذهب جمهور العلماء وي لكن الى وقان قال لما ادري كرو والله سبحانه وتعالى اعلم. شيخنا جزاك الله خير. سؤال سيدي طبناد سائل كان بحولي سؤال تطبي طبناد عفوا سائل كان بحولي يا شيخ خويدي بعد ما تي حولا اينا كتكتي عرور بدن واي كتكتي هو أنقان حولها كتكتين ما بدنا أنا وحنا هاي عرد دي حولها أنا وانو هي ميان قادن كريا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سؤال جوابته وحاوي حوله ودحل حوله دحلوي هو أما عرض النقو أما قرض بيس النقو ama ilmo dhaxan noqo waxa way waxay ka tagtay hayraad ha badnaado dhaxal buu noqonayaa mana qaadan kartid iyadoo la dhaxlaantida ayada ama warasada kale ku dhalatay aysan ku cafiyin aabaha walaalaha cid ku dhaxlaydo iyada dhaxalkeeda kula qaadan lahaa oo ku cafiyin ma qaadan kartid hadii aan la dhaxlin ama aysan ku cafiyin xaraam bay ka yihiin wallahu a'lam.
su-aasha 18aad saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay isaguna waa maxay xukunka odayaasha xeerka wax ku dhaqa maxaase inooga aadan waxyaabaha ay diyada ku sheegaan ee bacmadowga ah ma la bixin karaase bacmadow ma fahmin yani waxba ku salaysnayn baan u qaatay inuu yahay بسم الله suuqa madow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد odayada oday dhaqmeedka loo yaqaano xeerka iyo xeer iyo qaanuun aan qorayn oo xifsan yihiin oo dusha ka hayaan wax ku maamula waxay la mid yihiin baarlamaanka kuraasta iyo xafiisaha oo fadhiistay dowladaha maamulay la xugum yihiin wax u dhaxeeyo ma jiro midkana mid dastuur qoran oo kitaabka Ilaahay khilaafsan buu wax ku maamulaa qaybana asagu dejiyaa midkana mid uu xifsan yahay oo la kala guuriyo oo ka socday buu wax ku maamulaa midna waa maxfuud midna waa mudawan mastuur ah farqi kale u dhaxeeya ma uu jiro marka waa isku xugum isku meel bay marayaan qaybta ku saabsan magta bacmadow waxaan u malaynayaa baryahan dambe waxaa weeye magba lacag lagu soo qaaday lacag laga dhigayaa bacmadow waa lagu soo ridayaa markaas adoon tirsanin inta hadee wakaa wixii aan awoodno aan helay wixii kalena hadee waan kaaga faatax marinaba la is yidhaahdaa inuu sidaa ka wadaa laga yaabaa sidaa hadday tahay magta asalkeedu hadda waa inaga soo marra waxaa iskale dadkii laga dilay axadkii muslimkaa laga dilay baa iskale dadkaasi marka haddii ayagu ay sulxi ogolaadaan oy sulxi aan mulsam ahayn sulxiga mulsamkaa qaanuun buu isu bedelaya kufri buu noqonaya waa in khiyaar uu ka furan yahay magta 100 120 90 50 60 waxay ayagu ku qancaan dadkii dhiigga lahaa oon la qasbin xaggana xeer hore oo jiro reer hebel aan la ilzaamin way bannaan tahay axaadiis baana ku timid kaana waa laga qayb qaadan karaa hadduu laakiin yahay kan la is ilzaaminayo oo reer hebel wixii ragga waxaa uu xeera 40 wixii dumara waxaa uu xeera 20 14 neefna qolyaaba la sheegay inay gaarsiiyeen midka asaga waa qaanuun lagama qayb qaadan karo waa diin la'aan haddii aad wax ka qaban kartana ka qabo oo wax ka bedel haddii kale ka qayb qaadanin allahumma inaad ka baqayso dhibaato weyn oo burbur keento dhiig badan ku daata inay meeshii ka timaado adoo markaa rabo muslimiinta kale isbaabiinay inaad dhiigooda badbaadiso marka ayada waad ka qayb qaadan kartaa qaaraanka yarkii magta ayada laakiin fi xaddi daatihi inuu diin la'aanta yahay waa inaad ogaato markaad ka qayb qaadanna dhiig muslim oo soo socda badbaadi mooyeene وكما قيب قادن كرتي تاغيرو هوشان لانه لو غالوبيا والله سبحانه وتعالى اعلم سائل كان وحول يا شيخ وسؤال 19 waxaana hay gabar dhalinyaro ah oo dimuqraadiyada iyo baarlamaaniyiinta ka soo horjeeda gaalnimada u aragta sheekh dhibaato miyay igu tahay nin u arka normal ama agtiisa aysan wax dhiba ka lahayn in aan guursado mise igu xidhmaanin noocaasi waa su'aal dhib badan weeye go-aankeeda waxaa weeye ninka ha guursanne hadaad guursatana meherkaada ma asixin hadduu ku qabana iskaga carar hadda iskaga carar maxaa yeelay meher kuu qaban maayo ninka waxaa aaminsanaya garanaya aduguna aad ka aaminsatay inuu gaalnimo ku jiro si haddii uu say kugu noqon aduguna aad arad ugu noqon waa arrin la yaab leh hawshaasi ka fogow ninka kuma geyo gayaankaada ma aha kuwii ku geyi jiray raadso laakiin ka asaga iskaga fogow wallahu subxaanahu wa tacaala aclam جزاك الله خير الجزاء سؤال شيء نوغو دنبيسا او سؤال لباتناد حلقتنا مانتا وحول يا شيخ سائل كني شيخ هدي انيغو او ويسا قبا ان تابتو حبن كيغا ترنكا انيغو اون وحدان اكلا حين ويسا ما ايغا جبيسا بسم الله هذا ما فهم السؤال انت وحدان اكلا حين محاو طابتي hase ahaatee waxaa weeye gacantu hadday kaaga dhacday adoo sarwaalka iska furaya ama macawista xidhanaya ama uun hawl kale u socday gacantu kaaga dhacday sida raajixa weysadu ma jabin haddii laakiin aad qasad u taabato dareen bayaadan ka lahaanin iyo damaaci oo qasad u taabato weysadu way kaa jabaysaa almasu biqasdin waa naaqd lwuduu
المص بلا قصدنا وغير ناقض للوضوء سيد صوابك والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء. الله فيك. intaas ayuu barnaamijkeenii inoogu egyahay maanta sidaa iyo waxaan ugu dhaafaynaa salaamullaahi calaykum iyo kulanti dambe. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام.